dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa ka wada xaajoonaya mashruuca biyo xidheenka ee Nahda. Wareegto cusub oo wada hadallo ah oo lagu doonayo in lagu wajaho cabashooyinka Masar ee ku saabsan biyo xidheenkan Itoobiya ayaa lagu qabtay magaalada Qaahira. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saami Shukri ayaa la kulmay dhigiisa Suudaan Dardaar Maxamed Axmed si uu uga hadlo cabsida ay muujisay dowladda waddankaasi Masar. Kulankan waxaa la qabtay kadib shirkii guddiga wasiirada. Dowladda waddanka Masar waxa ay ka cabsi qabtaa bilowga dhismaha biyo xidheenka ah ee Blue Nile-ka, waxaana laga maarmaan ah in la xoojiyo wada xaajoodka kaasoo ka dhici doona biyo xidheenkaasi Nahda si hore loogu socdo danta guud ee dalalka oo idil ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Masar. Dowladda waddanka Masar waxa ay ku adkeysanaysaa xuquuqdeeda taariikhiga ah ee webiga iyada oo damaanad qaaday heshiisyada laga soo bilaabo 1929 ilaa 1959 kaasoo siinaya boqolkiiba 7 socodka biyaha webiga dowladaha Masar iyo Suudaan.